marka ay waqtiyada adag yimaadaan daryeelka caafimaadka maskaxdaadu waa mid muhiim ah si loo ilaaliyo degenaanshaha naftaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي ساد عوانك كسو aragteen ba maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay sidee loo daryeelaa caafimaadka maskaxda waqtiyada adag. halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 5 qodob, 5taasoo markaa faa'iido u leh in markaa aad ku daryeesho caafimaadka maskaxdaada waqtiyada adag marka lagu jiro. qodobka koobaad waxa weeye istajin joogto ah samee oo naftaada adigu deji, qaado neefsasho qoto dheer qaado markaad waqtiyada adag la kulanto. salaad markaa tuko. qodobka labaad ee soo iskalay waxaa kamid ah la hadal dadka aad ku kalsoon tahay sida waalidiintaada, qaraabadaada, ehelkaaga iyo cidii markaa tala caafimaad ku siin karaysaba la hadal. qodobka saddexaad waxa weeye jir ahaan firfircooni samee oo samee markaa socod samee, jimicsi samee sida exercise oo kale samee. dhammaan kuwaasoo dhanba waxay markaa kor u qaadayaan hormoonada farxadda oo farxad baad ka helaysaa. qodobka afraad waxa weeye samayso jadwal joogto ah oo hurdo kugu filan, seexo, cunno caafimaad la cun. dhammaan intaasoo dhan markaa caafimaadka maskaxda ay wanaajinayaan. qodobka shanaad ugu dambeeya waxa weeye xadid wararka walaaca badan leh oo tusaale ahaan oo kale social media ha badsanin oo bilmetel tusaale ahaan oo kale waxaad ku nooshahay family-gaagu ku kala nool yihiin wadamada hadda Soomaalidu de isku haysatay badan dagaaladu ku yiri jiraan goboladan bariga. tusaale ahaan oo kale marka wararka kaaga imaanayaan waa qof ehelkaaga oo dhinteen weey. marka wararka noocaas oo dhan maskaxdaada wax yeelaynaya. dhammaan marka wararkaas oo dhan waa inaad xadidaa oo marka social media aanad markaas ku farabadin. warshantaa qodob waxay ka caawinayaan in daryeelka caafimaadka maskaxdaada ay marka kor u qaadaan xilliyada adag marka lagu jiro. haddii marka aad wax dheeraad ah hayso commentiga inagu reeb iyo wixii marka ay faafaalaa. aad baan idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.